kulanti wacan oo wanaagsan ku soo dhowaada barnaamijkii idaacada caalamiga ah ee Gary Global Network. War degdeg ah oo maanta naga soo gaadhay ee gobolka Daawa. Sida xogta aan ku helayno, waxaa la filayaa inuu Maxamed Shaale imaan doono gobolka Daawa. Haddaba waxaan idin wadinaynaa waa kuma Maxamed Shaale. Waa qofkii hortaagan oo diidan horumarkii gobolka Daawa iyo dadkiisu gaari lahaayeen, isagoo doonaya in dadkii uu ka dhashay si qasaba ah ku soo dejiyo gobolka Daawa haddii kalena uu hortaagnaado horumarkii gobolku gaari lahaa oo dhan isagoo adeegsanaya awooddiisa oo uu Soomaalistete ku leeyahay. Tusaale, wuxuu sameeyey jidka laamiga ee federaalku oggolaaday oo isku xiri lahaa gobolka Daawa iyo gobolladii kale ilaa Jijiga ayuu hor istaagay ee gobolka Liibaan ama gobolkiis ku ekeysiyey. Mashruucii leerka soolarka ee degmada Mubaaraka loo qorsheeyey ayuu boqolmaanya oo deegaankiisa ugu beddelay. Wuxuu is-hortaagay isagoo adeegsanaya awooddiisa in Mooyaale laga dhigo ismaamul magaalo oo buuxa. Wuxuu samayn jiray isku dirka bulshadii diriska ahayd oo kala degan labada gobol Daawa iyo Liibaan isagoo dan gaar ah wata. Sida la wada ogsoon yahay, saamigii gobolka Daawa ka heli jiray Soomaalistete intuu Shaale awoodan maamuleed gacantiis gashay waa laga qadiyey gobolka Daawa saamigay xaqa u leeyihiin oo dhan ee fargelin joogta ahna wuu ku hayaa gobolka al'aana. Sababta uu Maxamed Shaale ugu ololeynayo shakhsigii laga eriyey iibinta ambalaasta iyo in uu ka xaday hantida ummadda waa isdabamarin haddii ay tahay in isaga iyo xubnaha kale ee la shaqeeya ay u fududeeyaan in dadkii uu ka dhashay ku soo dejiyo gobolka Daawa degmada Mubaarak. Wakiilkan uu u doodayo ayaa ah mid uu muddo sannado ah basaas u ahaa. Sidaa darteed, shalaka laba geesoodka ah waa in aan dib loo soo celin. Haddii ay taasi dhacdo, waxay keenaysaa khasaare aan la soo koobi karin oo mustaqbalka ah ee gobolka Daawa. Sidaa darteed, waxaad ka digtoonaataan dabinka iyo shirqoolkii uu idin maleegayo ama uu idin ku soo wado. Waad mahadsantihiin ee fiiro gaar ah u yeesha.